Nabaday saaxiibayaal, haddaanu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee kala degdega dhammaan geyga Soomaalidu, waxayna sugaya mustaqbal aad iyo aad u adag, mustaqbal aad iyo aad u madow, oo sanwankiisu haddaba aynu ku jirno. Runtii, dalkeena maanta waxaa ka socda kala go' aad iyo aad u weyn. Qaar hadda way go'een, qaarna xoog baa lagu haystaa, qaarna hadda ay rabaan inay go'aan. oo kuwa aad maalin walba aad maqasheen waa la aqoonsan rabaa, waa ay go'i rabaan. Runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado, waa arrin murugeedeeda ay wadato. Ma jirto maamul goboleed ummadda Soomaaliyeed wax faa'iido leh oo u taro oo maanta la sheego ma jiro. Ma jirto maanta iskuul maamul goboleedaasi ay dhiseen oo viigiisu ay lacag la'aan ay tahay. Ma jirto ceelal ay dhiseen. Sida ay tahayna waa kuwa raba in la aqoonsado oo keli ay noqdaan. Maanta qof walba oo Soomaali ah oo og yahay in midnimada wax ka muhiimsan aysan jirin. Haddii maanta Soomaaliya ay midowdo, waa la og yahay awoodda ay yeelan karto. Waa la og yahay inay noqonayso midda Afrika ugu awoodda badan. America iyo Yurubta ay tartami kartaa, laakiin lama rabo in Soomaali ay midowdo. Iyagana ma rabaan inay midoobaan. Dadkii la raba inay dadka Soomaaliyeed mideeyaan waa kuwa maalin walba aad maqashaan isla qabsigooda, iyadoo aysan ogeyn waxay isku haystaan. Ma ii sheegi kartaa wax micno leh oo isku haystaan? Oo iskuma haystaan, bad iskuma haystaan, diin iskuma haystaan, dhaqan iskuma haystaan, dhaqaale iskuma haystaan. يعني ummadda Soomaaliyeed wax maanta halkaan dhigay waa iyaga. Runtii kala go'aan ka socda Soomaalidu dalka Soomaaliyeed runtii ma aha mid maanta si fudud la isku keeni karo. Runtii aad baa laynoo jabiyey, aad iyo aad weliba. Maanta madaxweyne walba oo dalkaan yimaada u fiir doorasho ka dhacda haddii la rabo, madaxweyne walba oo dalkaan yimaada kaliya wuxuu awood u yeelan doonaa in Muqdisho uu ka taliyo. Awood uma yeelan doono inuu maamul goboleed uu ka taliyo. Midaasna dee markii hore ayaa looga talagalay, waana lagu guuleystay. Waxay dhowr sano laynaga digay ayaa maanta ina haystaa. Maanta dalka Soomaaliyeed waa ujeedaan halkuu ka fiyow yahay. Dhinac walba waynu ka burbursannahay, waa niyad-jabkii ugu weynaa. inuu soo kabsado iska daayay inuu sii kala burburo un baa laga sugaya. Sababtoo ah dee umaba eka maanta mudaharaadku ka socdo Baydhabo iyo kan Kismaayo ka socdo isku mid ma noqon karaan. waana kala fogaanshaha maanta ummadda Soomaaliyeed maanta dhexdooda taala. runtii maxaa xal inoo ah haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada Soomaalida maanta waa dhalin jab ka haysta, kuwa darbiyada fadhiyana kuwa tahriib bay u socdaan. aniga aan idinla hadlaya asbuucii la soo dhaafay ilaa 3 ilaa 4 dhalinyaro aan anigu aqoon u leeyahay waxaan soo barnay wajigooda aqoon ayaa safartay oo tahriib u baxday. qaar magafa qabsaday, qaarna dee Libiya hadda inay ku sugan yihiin aan maqlay. ka waran inta soo kama badna inta aan aqoonin oo baxay. maanta dalkeena aad iyo aad buu burburay, aad iyo aad. in la isku soo dhaweeyo iska daayay inuu si kala fodo un baanu aragnaa. runtii waa arrin aad iyo aad loogu xumaado. bahdiyada iyo karaamo dhaca iyo sharaf dhaca maanta dadka Soomaaliyeed loo geysanaya waa kuwa aad maqlaysaan. Kenya ugu horeysa hadda ku leedahay visa in dalka lagu soo gala. laba dal bay tilmaantay, anaga iyo Libiya, inay dalkooda ku galaan visa la'aan ay dalkooda aysan gali karin. maanta baddaada waa la ilaaliyaa. Airportka ugu weyn Soomaaliya waa lagu ilaaliyaa. xuduudaha cidii rabtaa soo galaysa, cidii rabtaa ka baxaysa. yacni geedka waxbarashadaadu faa'iido ma lahan. wax maanta dad Soomaaliyeed waxba yaraatay wax yar dhihi karo oo faa'iido ku qabaan ma sheegi kartaa. amnigooda waxba sheegay. yacni zero ayaan taaganahay.
halkan iyo mid ka daran inaynu tagno inaynu u socno mooyaane mid ka wanaagsan inaynu u socno uma jeedno. waa kuwa aad maqlaysaan siyaasiyiinteena maanta isla qabsigooda leeyahay Ethiopia ayaa xalin rabta yani dhaxdooda Ethiopia xalin rabta ka waran Kenya ay leedahay maanta kaali aniga deeyin xalinaya maxaa ku harsan ma waxa suuyaysaa in lagu soo duulo oo dhulka laga kaxeeyo kaliya intaas ma suuyayna runtii haddaanu dhalinyaro Soomaaliyeed nahay waxaa loo baahan yahay in arrinkaani aynu ogaano inaynu maskaxdeenu gelino in dalkeena maanta uu burburay oo meel waysan waxba laga qaban karin oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay laynaga digay maanta inuu dalkan uu ku sugan yahay maxaa xal inoo ah